bogay hararigii wacnaa iyo adnu allo aragtide yawan dheer ku soo dara Up
aadan ugu faraxsanaa horta intaanu dhalinyaro oo muxuu ahaa aad u faraxsan ee goobtan ku wada sugan yihiin waqtina ku wada qaadanayaan goobtaanu ku sugannahay waa degmada Daynile gaar ahaan goobta dalxiiska quruxda badan ee Tropica ayagana aadan ugu faraxsanahay ama aan ugu hambalyeynayna sida quruxda badan ee halkaan ugu soo dhaweeyeen kulankan ama munaasabadan waxaan si gaar ah ugu talagalnay inaan ku soo dhaweeyno walaalkeen saaxiibkeen garabkeena hadda waxaan dhahma garanaya waa Cumar Maxamed Soomane Cumar wuxuu ka mid yahay wariyaasha aan aad ku jecelnahay magaalada nagala howlgalo sidoo kale waa saaxiibkeen Cumar muddo wuxuu ku maqnaa magaalada Garowe caasimada dowlad goboleedka Puntland hadduu ku soo noqdo magaalada waxaan leeyahay Cumar oo magaalo laga jecelaaya ka tagtay haddana ku soo dhawow ku leenahay magaalo laga jecel yahay saaxiibkay halkaas wuxuu tagay arrimo shaqo dib ugu soo laabtay waxaan jeclaysanaa halkaan ku soo dhaweeyno waxaan ku leenahay saaxiib soo dhawow waxaad u imaatay asxaab ku jecel marka bixisna ku sii sagootiyay marka soo bixisna ku soo sagootiyay sidoo kale ku soo dhaweeyay aad u maasantaan ku leenahay maadaama naga aqbashay inaad waqtigan aad mashquul u ahayd shaqooyin badan ku yahay inaad halkaan noo imaato dabcan waa mid ka mid ah farxadaha gaarka ah oo sida lama filaanka ah shakhsiyaadka dunida ku nool ay la kulmaan markaan soo baxayay waxa la igu yiri xaflad gaar ah baa loo socdaa marka sidaas darteed si aan u ajiibo ka qaybgalka xafladahaasi baa waxa si lama filaan laga dhigay in xafladan qiimaha badan maanta hotelkan Tropical ay ku yaala degmada Daynile ee gobolka Banaadir lagu qabto xaflad surprise ah ama mataqaana lama filaan ah oo ay ugu soo dhaweynayaan asxaabteyda qiimaha badan walaalahay garbahayga taagan ii muujiyay dareen walaalnimo ehelnimo asxaab iyo qaraabanimo ku aadan jaceelka walaaltinimada ah oo ay ii qabaan ma jiro erayo kooban oo aan ku cabiri karo sida aad mataqaana iigu muujiseen sidaan qalbiyadiina aan ugu weynahay waxaan idinku leeyahay aad baad u mahadsantihiin waa idinka qabaa soo dhaweyntan qiimaha badan oo aad maanta ii samayseen